TikTok horta wuxuu naga soo galay dhinaca China. Waxaa la sameeyey 2016 September. Wuxuu ahaa markaa tijaabo. Waa video waa la duubaa. Wuxuu ka dheer yahay Snapchat wuu gaaban yahay laakiin isagu wuxuu leeyahay longer video. Wuu nagu cusub yahay Mareykanka. Hadduu soo gaadhay marka waxay sameeyeen actually waxay soo daayeen sanadkanay soo daayeen marka aadna way carruurta u isticmaalaan. waxaa lagu duubaa ciyaalkii u ciyaaraya wax faniya wax noocaasay ku duubaan laakiin waxayna ogeyn waalidku markuu ilmuhu soo download garaysto ama accountka samaysto by default waxa weyn privacy ma laha meel kasta laga daawanaya qof kasta message ku soo diri kara ilmihiina hadduu yar yahay wixii uuna garanayn marka waxa loo baahan yahay waalidkiisi inuu safeguard u noqdo ka ilaaliyo waxan khatar bay ku tahay ciyaalkii way cid kasta soo gali karta cid kasta soo download garaysan karta ilmihii message toos baa loogu diri karaa privacy waa in loo saraab gareeyo la ilaaliyo inkastay company-gu privacy-gooda yidhaahaan ilmaha 13 jir ka yar looma ogola haddana ilmuhu been buu sheegi karaa markuu download garaysto ama uu registration sameeyo da'du been ka sheegi karaa da'du been ka sheegi karo odhan karaa 16 jir baa wanahay maogtahay marka qof kastoo TikTok-gan haysta mar haddaad adigii soo download garaysatid waa la iswada arkayaa xuduud male waa la iswada arkayaa privacy mala privacy-ga waa inaad ogaatid oo safe garaysatid by default markaad soo download garaysatid cid kastaa ku arkaysa marka privacygeeda waa inaad ogaatid ood privacygaaga aad xidhatid haddii kale videogaad samaysa cid kastaa ku arkaysa cid kastaa message ku soo diraysa dee waxa weeyaan waa public marka hadda dowladdii Mareykanka walaac badan bay ka muujinayaan Congress-kii dalkan Mareykanka waxa walaac weyn bay muujinayaan oo leeyihiin TikTok-gan naga soo galay dalka Shiinaha wuxuu maamulanayaa carruurteennii dalka joogtay buu gacantii kula jiraa marka raad intee la eg bay dowladda Shiinaha ku yeelan kartaa carruurtii Mareykanka joogtay iyo guud ahaan kuwa caalamkaba wallahi wax badan bay ku yeelan kartaa way ciyaalka wax yar si yar baa loo duufsadaa waxa weeyaan TikTok-gani waxay ku sameeyaan wax faniya iyagoo ciyaaraya iyagoo wax kasta sameynaya wada waa video la iska daawanayo oo wajiyay sameynayaan wax faniyay sameynayaan iyagoo wax faniya u arkayaan laakiin isla markii haddana ciyaalka wuu duufsanayaa ciyaalka maxay ahayd wax yar ayaa lagu duufsadaa meeshii locationkii basaas baa soo geli kara ciyaalka waa la basaasi karaa waxaa jira human trafficking wax la yidhaha ciyaalka maxay ahayd ama ciyaalkaba dee kuwaa fursada moogtay marka ciyaalka halis bay ku tahay waayo privacyna ma laha locationkiisa qofku meeshuu jooga la ogaanaya waa public waxani marka waa halis culus waa halis culus oo carruurta ku soo korodhay iyo waalidkaba waalidka anigu waxaan oran lahaa ciyaalkiinu la socda waxay isticmaalaan telefonkooda waa inaad ku xidhaan waxaa jira parents way eegi karaan waxay carruurtooda telefonka ku sameeyaan iyo waxay soo download gareeyaan maogtahay marka waa inay ilaaliyaan carruurtooda iyagay mas-uuliyiintu ka saaran tahay marka hadduu 18 jir ka yareen tusaaloo kale waxaa laleeyahay horaantii sanadkan hadda aanu ku jirno 2019 bishii 11 baan ku jirnaa waxaa soo rogatay oo applicationkana isticmaashay 1 bilyan oo goor baa lasoo download garaystay oo lasoo rogtay oo adduunkao dhana bishii hadda lasoo dhaafay oo keliya 5 milyan oo goor ayaa lasoo rogtay baa laleeyahay oo kusoo korortay dadka isticmaala TikTok-gani maxay xawliga intaa la eg ugu socotaa aaladani wuxuu ugu socdaa wuu cusub yahay wuu ka cimri yar yahay Facebooka Snapchat-ka wixii cusub caalamka jecel wuuna ka cimri dheer videoga marka la duubo wuu ka dheer yahay video dheer baad ku duubi kartaa daqiiqado dheer soconaya daqiiqado dheer soconaya Snapchat wuu gaaban yahay wuuna ka cimri yar yahay waa wixii cusub caalamka jecel marka dadka saasay ugu wada daateen laakiin halis bay ku tahay carruurta yaryar dhibaatada ama khalalaasaha ay carruurta dalka Mareykanka gelin karto dowladda Shiinaha intee bay la eg tahay wax badan walaalo meelo badan bay ka soo galaan dee waxa weeyaan waxa ka dhexeeya dagaal siyaasadeed maogtahay ay dee hoosta iskaga soo galaan dagaalo badan baa super powerka ka dhexeeya saad u ogtahayba dee Ruushka iyo Shiinaha iyo laakiin qofkii sameeyey dad companygii sameeyey
waxay u sameeyeen like Facebook oo kale Snapchat-ka oo kale laakiin wuu ka duwan yahay privacygiisii baa xun carruurtiibu halis ku yahay waxaa odhan lahaa ogaada ilmihiinu wuxuu sameeyo telefonkoodana controla waxyaabo badan oo halisabaa adduunkan yaala oo maxay oo ka mid tahay dee applicationadan la samaynayo maxay ahayd ciyaalkii lagu ugaadhsanayo anu waxaan u arkaa un applicationada noocan hadee in ciyaalkii lagu ugaadhsanayo mogtay anigu markaan iskuolka tegi jiray dee library baan tegi jiray wax ka akhrisan jiray maanta wax kastaba waa online oo dee halkaas ayaad ka akhrisanaysaa marka ciyaalkiina waxaan odhan lahaa ilaaliya oo ka warhaya waxay qabtaanba tallaabo ula socda telefonka privacygooda waa inaad ku xidhataan waa inaad ogaataan carruurtiina waxay samayso